waxay ahayd bishii Ramadaan 2013 waa markii ugu horeysay aan soomay islaamnimadeedii kadib. bishii Ramadaan kadib waxaan dalxiis u aaday Talyaaniga, waxayna ahayd markii ugu horeysay aan hooyaday u sheego inaan islaamay. ugu horeyn waxaan bilaabay inaan booqdo qaraabadeyda. waxaan soo salaamay walaalkay iyo walaashay sidii qof caadi ah. iska warrama see tihiin ayaan dhahay. habeenkii markii la gaaray, waxaan go'aansaday inaan hooyo ula hadlo si caqliyeysan oo aan u soo bandhiga arrintan, sababtoo isla markii waan islaamay ma aanan dhihi karin. hooyaday waxba horay uma aysan soo baran, sidaan aniga ahaa oo kale ayay ahayd. intaa kadib waxaan ku dhahay, sidee baad u aragtaa haddii wiilkaaga uu joojiyo cabidda khamriga, cunidda maandooriyaha, sigaar afuufidda, iyo inuu aflagaadeeyo dumarka? yacni sida dadka qaar ay sameeyaan. oo uu bilaabay inuu salaada tukado in ka badan intii uu hore u samayn jiray, oo uu iska dhaafay inuu habeenkii kalaab aado. waxay igu tiri, wiilkaygiiyo maxaa kalaab kuu diidaya? waxaan idhi, hooyo, goobtaas waxaa ku badan muqaadaraadka iyo dadka xunxun, kuwaasoo dadka laaya. naaga jirkooda ka ganacsada baa joogaan, sidoo kale maafiyada baa jiraan. markaas baan su'aalay, wiilkaaga hadduu intaasoo dhan ka haray, sideed u aragtaa? waxay iigu jawaabtay, hadday sidaas dhacaysa aad baan u farxi lahaa. bal ka waran hadduu wiilkaaga ku ixtiraamo in ka badan intii hore. ma xasuusataa markii aan kula doodi jiray saaxiibtaydii Lidiana darteed, anigoo aan bilooyin kula hadli jirin iyada aawadeed ayaan ku idhi. waxaan ku idhi, muslim baan noqday. hadda ilaah baa mahad leh, muslim baan noqday. diinta aan hadda aaminsanahay waxay xaaraantinimaysay inaan hooyaday la murmin saaxiibadeyda aawadeed, sababtoo xaaskayga 9 bilood caloosha iguma soo sidin. 9 bilood oo dhalatay oo dhammaatay waa wax aanan caadi ahayn runtii. meeshaas waayo marka meesha aan dareenkeeda ku soo jeediyey. waxayna igu dhahda, waa maxay islaam? waxaan ku dhahay, alla subxaanahu wa tacaala baa wax kasta gacanta ku haya. waa kan ugu weyn, rabbiga sameeyey koonkan, adiga iyo anigana ina wada abuuray. ma jira cid gaara, xitaa qof saynisyahan oo aqoon sare leh oo inta ii yimaada igu qancin karaya waxyaabahan dunidan ka dhacaya. maamulka alleh ayay ka maran yihiin oo sabab la'aan ayay u dhacaan. sidaa darteed diinta islaamku waa diin nabadgelyo. innagana waxaan halkan u joognaa nabadgelyo. fariintanna waa fariin cid kasta ku socota. fariintan waxay ku socotaa inta ay hooyaday ugu horeyso, ama cid kasta oo muuqaalkan daawan doonta. anigu waan isbedelay. waxaan ku waabariistay adduunyo qurux badan oo aan aad ugu riyaaqay. gebi ahaan adduunyadii hore waan ka haray si aan u raadsado, u shaqaysto, una helo aakhirka goob yar oo jannada ka mid ah oo uu alle igu abaalmarinayo insha allah. xataa in yar oo jannada ka mid ah waa hamigayga ugu weyn. fadlan dadkiina baraha bulshada isticmaala faafiya, sababtoo ah anigu nolol mugdi ah baan ku noolaa. hadda ayuu alle iftiin i siiyey. ilaah baa ku mahadsan. waxaan bilaabay inaan luqadda carabiga barto, sidoo kale akhriska qur-aanka kariimka ayaan bilaabay. wuxuuna alle awood ii siiyey inaan 5 buug bishii akhriskooda dhammeeyo. hal bil gudaheed. xataa macallinkii wuu iga yaabay. qof howlkara baa tahay oo dadaalaya ayuu yidhi. waxaan idhi, wallaahi aniga ma ahan. awal akhriskaba ma jecleen. tani waa fadliga iyo nimcada uu alle igu manaystay. subxaan allah, dadka kuwo ka mida maba oga waxa ay ka raadinayaan adduunkan. maba yaqaanaan xaqiiqada dhabta ee quruxda adduunyadan. qaar dadka ka mida waxay rabaan inay helaan hanti, gawaari, dumar, kalaab, daroogo. ma oga, laakiin kuma baraarugsana inay kuwaas yihiin waxa hoos qofka u dhigaya. mararka qaar waxaan niyeystaa soon, laakiin salaada subax uma soo toosayo. gambaleelka oo yeeraya markaan maqlana waan joojiyaa si aan 10 daqiiqo oo kale u sii seexdo. kadib hurdadii ayaa ila sii dheeraanaysa ilaa 9 subaxnimo. markaasna suuragal iima ahan inaan soomo.
haddaba furaha ama xalku wuxuu yahay oo taas looga gaashaaman karo tijaabo aan aniga sameeyey. haa, anigu wax cilmi ah ma lihi, laakiin sirta waxaas oo dhan xal u noqon karta waxay tahay iyaduu qofku ilaaliyo oo uu salaada subax wakhtigeeda ku tukado. haddaad isku taxaluujiso arrintaas oo aad ku dadaasho, xaqiiqdii maalintaas oo dhan waxay kuu noqonaysaa maalin aad uga duwan maalmahaaga nolosha. walaalahayga muslimiinta ahow, ilaah jidka toosan ha inagu dilo, salaadaha ilaaliya, akhrinta qur-aankana badiya. intaasaa ugu muhiimsan. ilaah waxaan ka tuugayaa inuu ducooyinkeenna inoo wada aqbalo. muuqaalkan waa wacyigelin guude, dad badan ayaana ka faa'iidaysan doonee sii sheer gareeya.